dhammaantiin hadda diin la yiraahdo shirkad soo saarta kabaha oo noogala wacan aynu ku shaqeynaa waxaan aaminsanahay dhammaan inaan ugu ordeyna noogsoontii shirkadda kabaha soo saartay inuu ka qaalisan yahay midka Soomaaliga oo kabaha gacantiisa ku sameynaya kan kabaha gacantiisa ku sameynaya wuxuu ka sameeyay haraga xoolaha oo xoolaha dalkeena geela ama waxyaabo kala duwan geelaas oo lagu qalay magaca Allah Allahu Akbar idoo la oranayo la qalay waa harag qiimo leh waxa laga sameeyay kaba laakiin ninka ajnabiga oo Kristiyaanka kabaha aynu maanta xiranahay wuxuu ka sameeyay harag la mid ah wuxuu ku qalay wax aan ogeyn diinta waafaqsan oo dadeen si qaldan waynu ku faana waynu ku labisanahay balse keeni ahay Soomaaliga ma dhiirigelina waxaan oranaynaa waa tumaal waa marka hore inaan dhiirigelinaa hal abuurka soo hindisaya in uu dalkiisa iyo dadkiisa magac ku yeesho dalkana magac u yeesho taasoo ah in lagu dhiirigeliyo walaalkeen Soomaaliyeed ama gabadha walaasheen Soomaaliyeed hal abuurka ay kabaha hindisay ama asaga kabaha hindisay in la yiraahdo go ahead horusoc oo la yiraahdo wax fiican baad qabad soo habeenka ugu dhiirida in uu soo saaro kaba ka sii qiimo badan haddii la oran jiray made in China waa in la yiraahdo made in Soomaaliya muhiimadu waxa weeyaan dalka marka la fiirinayo waxa laga fiiraa muxuu soo saaraa dalkan